sodogii ka saaqiday sunnaha diinteena kuna saqiiray isticmaalka aalada TikTok-ga ilaa uu sida marwadiisa ula faraka ciyaaray gabadha uu sodoga u yahay ee wiilkiisu uu qabo. Soomaalidu waxay la yaaban tahay sodogaan xumaanta ka sariigan, xishood iyo xayaatoona lahayn, xidid iyo xigaalna aan xeerin. halkii uu xumaanta ka wanin lahaa xaaska wiilkiisa u soo xaydxaytay sidii uu la qoobka ciyaari lahaa xaawaleedan xurmada ka mudan. tanna waxaan ku tilmaami karnaa fitan, faxshi iyo foolxumo aan loo fadhiyi karin. dayuusnimada baraha bulshada ku baahdayna waxaa ka mid ah ka raali noqoshada xaaskaaga oo xabadka saaraysa ama xarfad taraaraysa ragga diintu ka xarintay, qaawanaan quud lagu raadiyo, qurux qasaartay, qooq daraaddii isi soo qarxin, qoyska iyo qarankoo la fadeexeeyo. TikTok iyo Telegram ayaa laga soo gaaray. faamilka fayraska loo arko ayaa fadeexadoodu ka dhex dilaacday aalada TikTok-ga, waxayna noqdeen kuwo lagu maadaysto damiir la'aantooda iyo dadnimo xumadooda ka aradan asluubta iyo dhaqanka suuban ee islaamka. faafinta xumaantaasina waxay ku soo biyashubanaysaa TikTok-ga oo ah aalad loogu talagalay in la isugu tabiyo taalantiga ama tabamaskaxeedda qarsoon ee aadamaha, balse Soomaalidu adeegsigooda ay ku tiimbadeen kuna sii talax tageen soo taswiiridda xubnahooda taranka iyo samaysiga qolalka galmada aan sharciga ahayn la isugu tashkiiliyo. ciyaarta alaabeeda ee qofka loo taaho saqda dhexe ee habeenkii. waxaan ugu bishaareynaa hooyinku ku nool qurbaha ama waddankeeni ma tahay shaqo la'aan, ma kugu yaryahay biilka ku soo gala bishii, ma u baahan tahay noloshaada isbeddel dhab inaad samaysid. shirkadda Forever Living waa shirkad milyaneero badan soo saarta. waxay ku haysaa fursad ganacsi ku kobci dhaqaalahaaga. magacaygu waa manager Fuusiye oo degan dalka Mareykanka. waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo ku ganacsata gurigeeda iyo goobteeda shaqo. haddaba ma tahay hooyo anoo kale oo joogta wadamada Mareykan, Yurub, Aasiya iyo Afrika? ma jecesha inaad adoo ubadkaaga la jooga waqti la qaadanaya inaad dhaqaale samaysid? haddii jawaabtaas waxaa tahay igala soo xiriir xog iyo faahfaahin dheeraada WhatsApp number +1 206 458 3625 sidan kuusii xog dheeri. dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan bilowday tallaabo lagu taakeynayo ama lagu xirayo TikTok iyo Telegram markii loo adkeysan waayay xeerar taraarka anshaxumada aaladahan, waxaana lama huraan noqotay in tallaabo sharciya laga qaado taasoo dalkeena looga xiray Telegram. waxaase hadda lagu isticmaalaa software burburiyaha VPN-ka loo yaqaan. wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaana awoodi waayey inuu muddadu u qabtay ku xiro TikTok iyo Speed. lamaanahan caanka ka ah TikTok oo bilooyinka hor Muqdisho ku aqalgalay ayaa dhaqankooda anshaxumada ahi uu hadalhayn badan ka abuuray Soomaalida dhexdooda. waxaase habnooleedkooda astacajib iyo afsalax ku dheg ka yeelay wiilka aabihii ama sodoga gabadha oo sida saaxiibtii ula faraka ciyaaraya, dhaanto ula dheelaya, ulana qoobka ciyaaraya marwadan xurmada ka mudan ee xaaska oo ah wiilkiisa. waxaana si weyn u faafay muuqaalkooda oo ay ka muuqato xishood iyo yaxyax la'aan xargaha goosatay, taasoo ka baxsan habdhaqan wanaaggii lagu yaqiinay xididka iyo xigaalada Soomaaliyeed oo aad isu qadariya. walow Soomaali badan sumcad wanaag iyo hantiba ay ka tabcadeen TikTok, haddana aaladan waxaa ku batay in la isugu tabiyo muuqaal jireedyo anshaxa suuban iyo diintaba ka abaarsaday. Telegram hortii miyaan aragnay gabdho la faraxumeeyey oo macmacaankoodii iyo dhaldhalaalka dhaymankoodii la faafiyey laguna fadeexeeyey bulshada dhexdeeda, halkii xaal iyo xumayn laga dhiibi lahaana laga dhigtay shactaro iyo shay iska basiida. qowmiyadaha badowda mooye bulshooyinka ilbaxa ayaa si weyn uga macaashay aaladahan. ganacsiyadooda ayaa ku bulaalay, kuwo badanna shaqo abuur ayay u noqdeen muuqaalada gaaggaaban ee lagu baahiyo aaladan. dhallinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta iyo saboolnimadu daashatay ayaana ka mid ah malaayiinta dada ee ka macaashay caanimada TikTok. qaarkood ayaa furtay meherado online ah, halka kuwana lacaga ay ka tabcadaan xayeysiinta shirkadaha wadaniga ay u sameeyaan. laakiin waa halkii Soomaalidu ay ku mahmahday baruur baa baruura qurmise. waxaad moodaa in saamaynta anshaxumadu ay qarisay wanaag walbo ka dhex socday aaladahan. kolkii dumarkii xijaabkii tuureen, xayadii iyo xishoodkii ka tageen, raggiina ay soo qarxiyeen iyagoo qaaqaawan, qoobka ciyaar iyo qaawanaansho quud lagu raadiyo, iyo qolalka internetka ee anshaxumada loo furtay, ayaa miiska soo saartay in dowladda Soomaaliya qorshayaasheeda ay ku darsato in guud ahaan dalka laga joojiyo isticmaalka aaladahan. waddankeena halkii laga rabay in la isugu tabiyo tabo iyo taatika maskaxeed muuqaalada wanaagsan ee waxtaraya, dhalinteennu waxay u tabaysteen una tafaxayteen taa beddelkeed oo ah inay isku fadeexeeyaan kuna tartamaan muuqaalo lagu soo tabinayo xubnahooda toolmoon.
xeerar taraarka anshaxumada ee aaladahan ayaa dowladda Soomaaliya ula muuqatay inay yihiin lama huraan u baahan in tallaabo sharciya laga qaado waxaana madaxdu ay ka caroodeen sawirada bulsho ee suuqyada xumuhu ay susumayaan waxaana loo arkaa aaladda Telegram inay tahay halista dhaqan dhaqaale iyo midda diimeed ee dhalinta Soomaaliyeed ay dhex muquuratay.